marka sidaan oo kale aad u soo gasho KineMaster waxa uu kugu soo muuqanayaa qaabkan. ugu horeyntii waxaad sameysaa ku dhufa calaamadda balaaska ah, kadib waxa aad ka sii doorataa qaybta ay ku qoran tahay empty project. intaan markaad sameyso waxa aad u baahan tahay in aad soo gashato videoga ama hordhaca muuqaalkaada. hordhaca muuqaalkaada si aad u soo gashato waxaad ku dhufataa qaybta ay ku qoran tahay media browser, kadib soo gasha muuqaalkii aad ugu tala gashay in aad loogadaada aad saarato. muuqaalka haatan waa kan waan soo diyaarinay, aan tijaabino sidan. haatan waxaad u baahan tahay in aad soo gashato loogada aad saaran lahayd muuqaalkaada. waxaad geysataa qaybta 101, kadib waxaad raadisaa loogadaada qaybta ay ku taalay. si aad u sameyso ku dhufo layer, kadib soo dooro qaybta ay ku taalay loogadaada. aniga haatan waxay ii taalaa qaybtan maahan. waatana sidaad u jeedo aan daarusi. muuqaalka wax nuxsi ama suubinayo si muuqaalka aad ugu yeesho gadaal wax yar farahaada adigoo isticmaalaya gadaal u celi loogada, qaybta dambena wax yar ka soo jar. muuqaalka si aad ugu yeesho animation ama dhaqdhaqaaq waxa aad ka doorataa qaybta ay ku qoran tahay in animation. aniga waxaan jeclahay inaan ka dhigto bob. qaybtan ku dhufo, kadib qaabkay ku bixi lahayd loogada waad inaad ka doorataa out animation. waa kaas, aan tijaabino. asxaabay waa intaasoo keliya barnaamijkeena. intaan ayaan kusoo gabagabeynayaa. waa saaxiibkiin Cabdirasaaq oo idinla socodsiinaya. tan iyo intaan ku kulmayna video kan oo kale waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.